xafladda arooska iyo weliba qabanqaabada fanaanadii hore Xamda Queen iyo weliba saygeeda cusub Cabdiraxmaan ayaa laga dareemayaa gudaha magaalada Hargeysa. Fanaanadan ayaa muddo waxay ahayd single waxaana ugu dambeyntii ay ku dhawaaqeen isbuucani in ay aqal gali doonto iyada iyo weliba sidoo kale saygeeda cusub loo yaqaan Marwan Cabdiraxmaan. fanaanada Xamda Queen oo hore ugu jirtay fanka Soomaaliyeed balse muddo hadda ka badan 2 sano aan wax muuqaalo heeso cusub soo saaray isla markaasna aan lagu aran shaashadaha ayaa waxa ay sheegtay in ay aqal galayso. fanaanadan oo kamid ah fanaaniinta xidigaha geeska isla markaasna ah fanaaniintii ugu caansaneed ee guud ahaanba ayaa waxa ay fanka isaga baxday sanadkii 2017 dhamaadkiisa iyadoo sheegtay in gabi ahaanba fanka Soomaaliyeed iska dhaaftay. wixii intaas ka dambeeyay laguma arag goobaha masraxiyada iyo weliba sidoo kale in ay soo saarto wax heeso cusub marka laga reebo heesidii hore oo laga heli karo dhanka internetka ama gabi ahaanba YouTube-ka. fanaanadan ayaana waxa ay hadda ku nooshahay magaalada Hargeysa walow la sheegay in ay u guurtay mararka qaar ay deganeed magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia inkastoo ay hadda arooskooda qabanqaabada ka socoto magaaladaas Hargeysa.